saldanada Brunei ama daarta nabadda waa mid ka mid ah dawladaha ugu tanaadsan wadamada Islaamka waxaana lagu tiriyaa inay ka mid tahay dawladaha ugu yar caalamka waxay ku taallaa xeebta waqooyi jasiiradda Borneo ee koonfur bari Aasiya maanta waxaynu ogaanaynaa dawladdan aadka u yar isla markaana ka gaartay xagga tanaadnimada iyo barwaaqada heer aad u sareeya sidoo kale waxaynu baran doonaa suldaanka ka taliya dawladdan iyo noloshiisa xad dhaafka ah oo aan aqbali karin qofka muslimka aqligiisa inta aan u gudagelin waxa muuqaalkan taabageliyay saliidda Me and My Family oo u wanaagsan go'aatinta waxayna leedahay faa'iidooyin badan haddii aad u baahan tahay kala xiriir nambarada ku muuqda taariikh ahaan dawladdani waxaa la sheegaa in la aasaasay qarnigii 7aad ee miilaadiga waxayna ahayd dawlad ka tirsan boqortooyadii Sirivigaya waxaana lagu magacaabi jiray Buni kadib waxay ku biirtay imbaradoriyadii Majapahit magaca Brunei waxaa loo bixiyay qarnigii 14aad macnaheeduna waxaa loola jeedaa badmaah waxay ku dhacday gacanta gumeysiga Ingiriiska sida dawlado badanba ku dhacday ka hor intaysan dib u qaadan xornimadeedii 1984 Brunei waxay samaysay horumar intii u dhaxaysay 70-meeyadii 80-meeyadii iyo 90-meeyadii dhaqaalaheeduna waxa uu noqday mid aad u sareeya waxayna ka mid noqotay dawladaha wax soo saarka leh waxaana hadda lagu tiriyaa kaalinta labaad xagga dhaqaalaha dawladaha ku yaala koonfur bari Aasiya heerka horumarka adduunka dhaqaalahan waxay ku xigtaa xagga tiriska dawladda Singapore suldaanka Brunei waxaa lagu magacaabaa Xasan Balqiya Mucazzidiin Wacdallah waana suldaankii 29aad waxaana lagu tiriyaa shakhsiyaadka ugu taajirsan caalamka waxa ay sheegtay majalada Forbes warar ku saabsan dadka ugu taajirsan caalamka waxayna sheegtay 2018 in Suldaan Xasan hantidiisa ay gaartay 20 bilyan oo dollarka Mareykanka ah waxa uu ku caanbaxay Suldaan Xasan nolol xad dhaaf ah oo xitaa waxa la sheegaa in uu raashinka ku cuno weelal dahab ah dawladda Brunei waxay leedahay madaxtooyada ugu quruxda badan caalamka waxaana lagu magacaabaa Astana Nurul Iman waana meesha rasmiga ah ee Suldaan Xasan degan yahay waxa uu dhismahan ku yaalaa dhinaca wabiga Brunei ee koonfurta caasimadda waxa uu ka kooban yahay 1788 qol qaar ka mid ah waxa ay ka samaysan yihiin dahab iyo diamond sidoo kale waxa ku yaala 257 musqulood oo qaar ka mid ah ay ka samaysan yihiin dahab waxa uu leeyahay garaash qaadi karo 110 gaari guriga oo degan yahay waxa uu ka samaysan yahay alwaaxyo gaaraya 650 xabo halkii alwaax waxa lagu qiimeeyay 150,000 oo lacagta Eurooda ah qofka soo booqda gurigiisa waxa uu baahan yahay in la siiyo 24 saacadood si uu u ogaado qolalka gurigiisa sidoo kale gurigiisa waxa ku yaala meelo lagu dabaasho waxa uu u dhigay Suldaan Xasan xaflad aroos gabadhiisa Amira Xafda 2004 waxa uu ku qarash gareeyay 20 milyan oo dollar waxa uu ku qabtay arooska qasrigiisa waxaana ka soo qayb galay madax kala socotay dawlado kala duwan isticmaalka waxyaabaha maanka duuriya waxay ka yihiin Brunei mamnuuc hase yeeshee dadkaan iyagu muslimiinta ahayn waxa loo ogol yahay in ay soo galiyaan ama ay soo iibsadaan kaliya marka ay u isticmaalayaan si shakhsi ah dagaalkii labaad ee adduunka Jabaaniisku waxay soo weerareen Brunei waana qabsadeen iyaga oo doonayay inay ka qaataan shidaalkooda Brunei waxa ku yaala masjidka ugu weyn bariga Aasiya waxaana lagu magacaabaa masjidka Suldaan Umar Ali Saifuddin ama masjidka dahabiga ah waxaana laga dhisay meel biyo mareen ah oo ku taala magaalada dhexdeeda waxaana la dhisay masjidkan taariikhdu markay ahayd 1958 waxaana lagu tiriyaa in uu yahay masjidka ugu dhismaha wanaagsan mandiqada Aasiya iyo badweynta Hindiya uguna soo jiidashada badan xagga dalxiiska canshuur la'aanta iyo sicirka shidaalka oo hooseeya awgeed Brunei waxa ay leedahay tirada ugu badan xagga baabuurta qayb ahaan waxa ku soo aadaya hal baabuur labadii qofba suldaanku waxa uu leeyahay mid ka mid ah diyaaradaha ugu qaalisan caalamka waxaana laga sameeyay qayb ka mid ah dahab qiimaha diyaaradan ayaa lagu qiyaasay 100 milyan dib ayaa loo cusboonaysiiyay waxaana ku baxay 120 milyan oo dollarka Mareykanka ah sidoo kale suldaanka waxa uu leeyahay 7 diyaaradood oo yaryar iyo hal helicopter ah sidoo kale waxa uu leeyahay baabuur aad u badan waxaana ka mid ah baabuurtiisa 531 oo Mercedes ah 367 waa nooca loo yaqaan Ferrari 185 waa BMW 177 waa Jaguar 160 waa nooca loo yaqaan Porsche iyo kuwa kale oo badan waxa uu bixiyay Suldaan Xasan lacag dhan 25,000 oo dollarka Mareykanka ah si loogu dalbo ninka tinta u jaraya oo ka imaanaya dalka Ingiriiska sidoo kale waxa uu kireeyay gaari qaas ah si loogu keeno ninka timajaraha ah qasrigiisa sidoo kale waxa laga helaa Brunei dhagaxa ugu weyn caalamka oo ka samaysan dahab waxaana loo ogol yahay dadka u imaanaya booqashada in ay fiirsadaan iyadoona la baarayo
qofka halkaas soo gelaya si looga ilaaliyo dadka doonaya in ay wax ka jabsadaan. Ma ka jirto wax canshuur ah Brunei oo laga qaado shirkadaha iyo ganacsatada kale. Dhaqaalaha ugu badan oo ay leedahay Brunei waxaa la sheegaa in ay ka helaan shidaalka laga soo saaro badda dhexdeeda, waana mid ka mid ah waxyaabaha ay ku tiirsan yihiin. sidoo kale waxaa la tilmaamaa dadkoodu inay yihiin dadka ugu cayilan koonfur bari qaaradda Aasiya. 20% carruurta dalkaas waxa ay ka sheeganayaan siyaadada miisaanka. waxa uu soo saaray Sultan Hassan Balqiya qaraar ah in waddanka lagu xukumo shariicada Islaamka, hase yeeshee wadamo badan oo ka mid ah dawladaha caalamka ayaa dhaleeceeyay dilalka iyo garaacista uu dadka ku sameynayo, halka ay la yaabtay haweeney u dhalatay dalka Mareykanka oo lagu magacaabo Julia Lauren. qaraarka uu soo saaray suldaanka waxayna sheegtay in suldaanka la fahantiisa uu sameeyay waxyaabo xunxun oo diinta Islaamka ka hor imaanaya. waad ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan. haddii aad ku cusub tahay channelka maanta subscribe dheh si ay kuu soo gaaraan muuqaalada cusub. hana hilmaamin in aad booqato channelka kale Maanta Technology.